ciidanka anigu soo saareen dambe soo bixi markay yari ka hadho oran maayo soo saara anigu soo kordhiya ciidanka soo kordhiya aan leenahay habar yoonisay naga kaxayso waxaan leenahay habar jeclay kaxayso hadaa la leeyahay daris baynunay wax walba wana waxaad xasuuq lahaydeen xasuuqdee inta dambe kaxaysta haddii aliina leeyahay habara walay soo socaadigu habara walay eela leeyahay haddii aliina leeyahay caadad ilaahay garanaya iyo rasuulkiisa tiin hanoo imanina hanala hadlina ninkii xabad sita ee dabciidu ka soo dagaaba laba saxadood ninkaas iska yimaado isagu wuu ku dhiman doonaaye isagoo xaq ku dhimanayna oo doofaar ah wuu ku dhiman doonaaye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annaga odayaasha ama guurtida degmada Yagoori xuqaasha odayada dhalinyarada nin garboodka dhammaanba waxaanu saakalka u taaganahay inaanu halkan iyada aanu kaga hadallo niman odayaala oo la hadal hayo maalmahanba ilaa xalayna aad loo hadal hayay oo ka soo jeeda beesha Isaaq oo maalmahanba lahaa waxaanu tagnaa isbitaalka Yagoori waxaanu adduun weynaha iyo beesha dhulbaantaba u cadeynana isbitaalkan iyada ah ee saaka haba yaraatee wax ka jira oo gogola oo cid loo diyaariyay oo taala haba yaraatee aan jirin odayada iyada ahina aanayna soo gaadhin haddii badankeeda leeyahay meeshan aanay ku soo xisaabtamin dadkan cid baa matasha waxaa matasha ismada dhaqanka beelaha SSC iyo gudiyada 3 ah ismada iyo gudiyadaasi way hadleen waxay sheegeen in haba yaraatee la soo hadashay aan jirin ama cid Yagoori gogol u dhigeen taasi anagana noogu dhantaa sida odayada namatala ee beelaha SSC odayaasha way uga hadleen ayaa annana aanu saboodsannahay soo dhaweynana haddii badankeeda leeyahay cid meeshan iyada gogol u taalo oo beesha iyada ah ee reer Isaaq ka tirsani haba yaraatee ma jiro hartigu meel joogo iyo daarood meel joogo iyo dhulbahanta meel joogo waanu idin salaamayna horta marka uu horeyso bidayada meesha aad joogtaan salaantaasi waa reer Yagoori idin imanaysa waa naga gudoomaysan inta waxa raaca hadallada qaybaha mandhalayska ee aan taranta lahayn qofka mandhalayskii ma tarmo hadalladan qayb baan tarmin oo aan miciin lahayn hadalka mandhalayska aad maqasheen ha qaadanina waa Yagoori meeshan hadalka waxa la yiri gogol baa la dhigay haddaad tihiin jaamacsiyaad gogol baa dhigteen baa la yiri Yagoori niman baa ku sooriyeyseen waxaanu idin sheegaynaa xigaalow meesha aad joogtaan bido iyo dibad kelmadaas inayna jirin dibna u jireen hadeerna jirin taa baad noo rumaynaysaa noo tixgelinaysaa tii horena waa tuuraysaan mandhalays baa hadalkaas waayahay intaa waxaa noo raaca waa intii xaggeena xagga qolada tan aynu xigaalka iyo xididkaba ahayn aynu isku dhacnay waxaanu idin sheegaynaa golayaashu haddii ummaddu wax is yeesho shuruuday leedahay shuruudaha marka dagaalka laga soo jeesto ama dagaalka hortiisa ama dabadiisa ayaa laga wada hadlaa nabadgelyada iyo wada hadalka iyo xaajada tan saaka aynu joognaa waa tii xabadda dhacaysa xabaddii dhacaysay baanu misna waxaanu keenaynaa Yagoori ergo waxaad moodaa hadalkaasi inuusan macquul ahayn hagaagsanayna meeshana qaban waxaad yeelaysaan bal inta aynu dhan u kala dhacayno guryihiina idinna ku ekaada annana kuwa yagaanu ku ekaanaynaa Yagoorina ma imanaysaan hadeer imanna maysaan imanna dooni maysaan ciidanka anigu soo saareen dambe soo bixi markay yari ka hadho oran maayo soo saara anigu soo kordhiya ciidanka soo kordhiya soo garan maysaan waa soo kordhinaysaan ciidan laakiin anigu soo saara waa madnuuc waa kelmadan miciin lahayn weeye markaad soo kordhisaan yaani isku basbeelo markaasaynu wax qaybsan doonaa waxaanu idin sheegaynaa walaalayaalow oo alihiin la leeyahay aanu idinku abhinaynaa arlada iyada ha imanina niman dagaal u soconayo ima gurigayaga Yagoori waa waxaan aqliga gali karin inuu yiraahdo waxaan keenayaa gogol nabadeed maanta nabadi ma muuqato wuxuu reerku xaq u socdaa nacasna loo sheegi ma in ragina waa ogyahay waxaan u maynay nimankan uu soo diray isiima maaha waa niman qabqablayaal uu lacag soo siiyay waayo waanu maqlaynaa habar yorsinta aqli lahayd way ka hadhan waxa meesha maraya waa Sacad Muuse oo soo urursaday oo koofiyada macalayaala noomana iman karo waanu naabhinaynaa lihiin aduu leeyahay caynaba ama burca meesha joogtaan ku ekaada halkan ma iman kartaan gogolayni ma taalo caalamkana waxaan u sheegayaa been fakatay runimo gaadhaa la yiri waxa la gogoshi waa la dhigo xoolaha la qalay annaga Yagoori u dhalanoo joogno odayaashiya wax la dhigay iyo wax ka suurto ah
iyo wax ka midna ma jirto ninka waanu abhinayna waxaanu allaha hadii alla ciidankaaga SNM naga soo kaxayso dawlad ma aha waa jamhad ninka Hargeysa u dhashay la sacaanood buu leeyahay anaa leh sool ninka u dhashay isna ma laha calaamad ma laha war isagoo ka sool u dhashay magaalada duqaynayo horta meeyay isaga xadkiisu kan wuxuu xadka Allah sacaanood anaa leh berbere iyo gabal u dhashay kan la sacaanood xadkiisa bal waa xagee boqortooyo ahi ila sacaanood maanta hadal u soo aadi maayo oo wiilkiisii uu dadka kale ka siiyay oo haddeer xasuuqayo fadhiyo halkan erga u soo aadi maayo haddaad dad islaama tihiin oo allihiina leeyahay kuwiina soo socdaana haddaydan xabad sidina noo imanina haddaad islaam tihiin oo allihiina leeyahay dadkiina naga kaxaysta waxaanu leenahay habar yoonisay naga kaxayso waxaanu leenahay habar jecloy kaxayso haddaa allaha leeyahay daris baynu nahay wax walba wanahay waxaad xasuuqi lahaydeen xasuuqdee inta dambe kaxaysta haddii allihiina leeyahay habara walay soo soco adigu habara walay adigu soo soco arabow kaxayso haddii allaha leeyahay ways dhallay haddii ayuubow kaxayso haddii allaha leeyahay ways dhallay haddii allaba kuu rooyahay waxaanu leenahay oo aan saaka anigu idin su'aalayaa war Soomaaliland diinta islaamka halka ay kaga jirto ma quraan ba idin dadka ku laaya idinkuna ku dhamaada ma xadiis ba ma hadalla ku rooyahay ma qisooyin ba oo waa qisas annagu Soomaaliland wax la yaanu garanayna ma jirto waxaynu nahay dadkaas dhalay wada yiil way iska kaayadisheen adiyad baa noo keentay inta oo sanadeed baa nagu adiyadoonayseen waxaan quraanka ku jiray idinaan ku dham haddii aanu nahay degmada Yagoori waxaanu idiin sheegaynaa waxaanu maqalay waftiyaad soo wadaan Muuse Bixi baa soo diray halkan uu gogol dhigaya waar waxaasoo kale wax lagu hadlo iyo wax la qaadan karo midna maaha waar gogol maanta meel dhaawac inoo yaal baanu gogol dhigaynaa maxaad uga jeedaan sawmaaha in lagu gadoodo la dilo sawmaaha waar iman maysaan gogol la dhigi maayo isugu iman mayno waxa la sheegana waxba kama jiraan Muuse filma sheegin ka kale ay gogol badhigayna filma sheegin saasaanu idin leenahay ninkiisii la dilay oo uu dul yaal dhaawiciisii iyo maydkiisii waa nabad baan kula imanaya xagee ka imanaysaa war haddii allaheena leeyahay haddii allihiina leeyahay oo caadad ilaahay garanaya iyo rasuulkiisa tihiin ha noo imanina ha nala hadlina ninkii xabad sita ee dabcaynu ka soo dagaabo laba saacad ninkaas iska yimaado isagu wuu ku dhiman doonaa isagoo xaq ku dhimanayna oo doofaar ah wuu ku dhiman doonaa waxa lagu sheegay salaadiinta rasmiga ah waa kuwa ka hadlay Hargeysa iyo Burco ay yiri anagu arrinka kuma jirro dagaalkaasna waa ka xunnahay weligay Allah ina halkaas geli mayno waxaanu leenahay ciidamadayda naga soo bixin anagu horta kuwaas aan taageersanahay oo hambalyeynayna nimankaas garxajis iyo nimanka Ayuub ee halka ka hadlay Hargeysa iyo Burco ka hadlay isaaqa xaqa ee wax kala garanaya waa kuwa nimanka Muuse soo diray ee halkan soo socda waxaan u malaynayaa inay u socdaan gooja cadde oo ay leeyihiin nimada yar ee madafiicda soo dhiibeen xabadda aad u rida waxaan leenahay hadda inta soo socotaan gooja cadde way dib banaantay xabaddina waa ka socotaa kaalaya waana leeydku ridayaa idinka inamadiina haddii aad nabad doonayaatina Hargeysa intaad ku noqotaan inamadiina u yeedha oo geesta oog iyo wixii ka sheeya halkaas ayaa markaa nabad ku xidhmaysa laguna wada hadli karaa waxaan in dagaalku jiha uu ka socdo iyo meel ku socdo iyo dan uusan lahayn war waanu abinaynaa haddii alla yahay ayaro naga jooga oo aan dhiig naga doonayn oo hadda dan ka leeyahay odayaashina iyo askarta naga kaxaysanay odayaashina naga joogeen dhalinyaradeedu waxaan u taaganahay mar walba kuwa ku dhimanayana waa annaga kuwa doonaya inay meel gaadhaan oo meel ka soo baxaan oo hoggaan yeeshaan oo dalkooda xoreeyaan waa annaga waxaan ku soo gabagabeynayaa deentayadaasi waxaan joognaa goobtu sheegay leeyahay gogol baa noo taala waa dadkii meesha u dhashay wax gogol taala ma jiraan wax la dhigayana ma jiraan wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan maqlaa isaaqo og taga doorta waxaad reer isaaqo aaminsantihiin ingiriiskii xadku afrika ku qaybiyey oo wax badan ka dambeeyeen baad aaminsantihiin ingiriiskii reer walba xuduudiisa way u calaamadsan tahay xuduudda dhulbahanta waa gaatama
oog maaha aynaba maaha walaamago maaha kiriidh maaha waa gaatama xuduudda dhulbahanta halka lagu xisaabtamaya gogosha la dhigayaana waa gaatama ee laysugu imanaya isaaqow taba ku talagala dhulbahantana waa sheegaya xuduuddina ha ilaawinina dhulbahantow degmada Yogoori ahna dhalinyarada jamaahiirta xaqudirirka ka odayaal ahaan ka dumar ahaan ka bax caafimaad ahaan anoo ku hadlaya afka shaqaalaha caafimaadka General Hospital waxaan ku leenahay Muusow annaga salaadin noomaad soo dirine laba kaaraad noo soo dirta labada kaarana jawaabtooda adeer wad helaysaa talabaysa lama arag argagixiso salaadin loo soo diree soodigu nagu la argagixisaatiine iyo BS iyo Puntland baatiine Puntland iyo BS iyo argagixisiyo federaalkii intaba way joogan dhulka Soomaaliyeed u diriyaga salaadinta haddaan anagu bahda caafimaadka degmada Yogoori waxaan ku leenahay kuwaad soo laysay madaxa shaamashuutarka kala dhacday baa lagu dabiibay dhakhtarka Yogoori loomana ogola salaadin ka socota ma jiraan salaadin hadaysa jiraan waa kuwii garxijiska hadlay garxijisna mid baan leenahay adeer hadaad qaadateen nabadda dhulbahante kala soo baxa 400 wiil ay idinkaga sii jira jiida hore taasaan leenahay iyadoo wiilkaaga gooja cadda joogo annaga waxba noo soo kala habeen sokaynina dhakhtarka Yogoorina mid baan leenahay waxaan leenahay dhakhtarka dhaawici baa ama madaxweynaha Musabixi uu leeyahay waxaan gogosha taalaa Yogoori qof kasta wuxuu soo targad garanaya Yogoori war Yogoori anaga dhex joogna wax la gogolayaan jirin gogol la dhigayaan jirin isma ku wada hadlayaan jirin waxaad fahanteen soo maaha nin baasuuka ku socdo oo marfac la dhacayo oo la leeyahay hadana nabad baad fidinaysaan ka jaamacsiyad ahaan ama Yogoori ahaan waxa la leeyahay idinka ama nimankii u dhigaya gogosha waxaan u dhiganaan lahayn oo ma soo gali karaan oo nooma iimaan karaan waxaad fahanteen soo maaha qolada social media warka beenta la wareegaysana annaga Yogoor dhexdiisa ka soo hadlayna subaxa saaka oo ka soo sheegay inaanay iimaanaynin haday timaadana tafadhiig lay barta kala tigayaan waxaan leenahay dad ilaahayna taqaanin naga jooga oo dhig xumadiina iyo magac xumadiina noo dambeyn doonta hadhow oo adduunka buugta adduunka nagu dari doontaan nagala noqdo oo hanoo keenina dhiigiina saasaan leenahay halka isbitaalka Yogoor waxaan ku dabiibaynaa oo ku haynaa dhowr 12 cisho ka socday maxay ahayd xasuuqa gobolka Sool ka socday dadkii ay ku soo dhaawacmay ayaan gacanta ku haynaa oo ku dabiibayna waarka waxa ka buuxa dadkii soo qaxay ay marfac la dhacay hadalka inta la yiri waxa la nin badiyayna wuxuu ka muudeen nin yareeyayna waxa kama tagin anigu waxaan ku hadlayaa afka jamaahiirtan ku hadlayaa haddaanu nahay jamaahiirta dhalinyarada jamaahiirta haddaanu nahay heer Yogoori anaga odayaasha la soo diray odayaasha u jawaabayay anagu diyaar baan u nahay waxay la kulmayaan way garanayaan nin ragana loo sheegi maayo nacasna loo sheegi maayo marka anigu halka qodob baan ku darayaa insha Allah wad mahadsantiin